Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal 24. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhagax dhigay dhisme isbitaal oo loogu talagalay dadka dhimirka wax ka qaba. wariyeenna Xuseen Nuur Geesay ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa maanta sheegay in ay jirto baahi aad u ballaaran oo ku aadan dadka dhimirka la ee iyagu ku nool koonfur galbeed ee Soomaaliya. hase yeeshee xarun weyn ama isbitaal weyn oo lagu xanaanayo dadka dhimirka la ayaa maanta waxaa si toos ah u dhagax dhigay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markaasi sheegay in ay jirto baahi aad u ballaaran oo ku aadan arrimahaasi maadaama dad aad u fara badan oo ka soo jeeda koonfur galbeed xilligan ay xaalad caafimaad ee dhanka maskaxda ay haysato. ugu horeyn ayaa munaasabadii dhagax dhigga isbitaalkaasi ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaa halkaasi ka hadlay Awees Salaad Dadow oo ah madaxa ama kamid ah xubnaha ka tirsan guddiga danwadaag oo iyagu fulinaya mashruucan dhagax dhigga isbitaalka ee dhawaan lagu wado in ay yeeshaan dadka dhimirka la ee ku nool koonfur galbeed ee Soomaaliya gobolada Baay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. isbitaalka sida marka oo muddo in badan la hadaadiyay haddii isbitaalka armoodi hoose ana ka nagada magaalada Baydhabo ma ku jirtay guddiga task force bilidka guddigaas oo geemada la ku sanadka garay dhammaan qaybaha bulshada guddigaas oo 20 xubnood ah barnaamijka ma yahay hal sano ibar runtii barnaamijka dan wadaag iyo barnaamijka kumid ay barnaamijka dan wadaag la bilidka ku dareer ma ilaa ka qiimeeyay barnaamijka in ka doono qarashdan $330,000 sidoo kale gudoomiyaha maamulka ee gobolka Baay Cabdi Aadan Hoose oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay tani inay guul u tahay marka loo eego dadka ku nool gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya xilli haatan ay ka jirto baahi aad u ballaaran oo dhanka dadka iyagu waxyeelada ka soo gaartay dhanka dhimirka ah. howlagi gobolka ku dareeriyo ku mid ah 1.8 milyan beesa ka dhow iyo waladii dijin ka talagalay degmadu shaleedii in la maalgeli هول مدة بدن هدرارتيو ولا أنك هريو ونهيدو كل هذا لاني ويهايتي باسد فكرك إن سلشان تنا باسد اللي شانا فكرك إنه نورسدا وني ميلين إنه عايز مسين شيئا. وزيرك وزارة عافيمادك دولة goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Isaaq Cabdi Subag oo isna halkaasi hadal gaaban ka jeediyay ayaa ku amaanay guddiga danwadaag in ay wax badan ka qabteen marka loo eego howlaha haatan ay u bareereen ama ay dhabarka u rideen mas'uuliyadooda ee ku aadan dhismaha isbitaalka dadka dhimirka la siis bogdin isbitaalo kiyaala magaalo laakiin isbitaalkii hore oo dhimirka koonfur galbeed Soomaaliya oo magaalada Baydhabo targimi kangeekun madaxweynaha dhagaxan idin fadano saazartiye nayba rajayna hadii ilaahay dad badan oo magaalada ka dhibaataysan oo waalan maskaxda xanuunsan haddii meelo daawo iyo daryeel iyo nay hooy badan ay u doonto ilaahay. madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay isla markaana dhagax dhigay ayaa waxa uu sheegay tan inay qayb ka tahay guulaha haatan ay gaareen dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sidaas darteedna shacabka ku nool koonfur galbeed ka codsaday in ay dawladda la shaqeeyaan isla markaana ay ku daydaan tallaabada ay qaadeen guddiga danwadaag oo haatan u bareeray howl baaxadeedu intaan la eg tahay oo ku baxaya lacag aad u fara badan. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray intii maadilaha isku maanagaan guddiga oo iska xil saaray in oo fikradu oo sida u fayla inuu soo shaqeeyo oo mudana ku dhaadhiciyaan in ay gaaraan maalgashi ka suubiyan iyo hay'ado caalamka iyo dawlado oo kharashkaas wada dhiibahayaan runtii idin ka maanagaan maadilaha isku leh barnaamij idin baahanayo isbitaal فرنا تسلمنا تقولون بلدينا وكونفرنس ما تقولون تيجي لنا كباهني إن دريال إلهي يسكول لكن لانك دريال الدنيا دبعتي سوسي دريال على مركب وليبا وغيره كمان نجانة تدي فكر بفعل الجلي يعني أنتم تغلفولي وحديرسي ميدي هكذا كروبد حدي العقلي يهدي وقت جلي يهدي فكر جلي برونتي إيران كمان نجانة لانك استوسي قارعان هي إدو العقد بدن عشان الشيء دي والله عقد بدن الشيء وبرنامج في الدولات قبل كباي قارعان تجمد بيدو كسيو هاي كذا كمان نجانا SSF عاوية هاي ترونتي ويلنا
mashruucyo badan kale lan baahayeen diraan iyo ku sugaan inay caawiyaan oo walba qoqodan tan dhagax dhigida isbitaalkan ee haatan ay fulinayaan guddiga danwadaag ayaa waxa uu ka soo beegmayaa xilli haatan la dareemayo baahi aad u ballaaran in loo qabo dadka iyagu dhimirka la ee lagu arkayo qaarkood in ay ku sugan yihiin gobolada Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose intaa kadib ayaa xarunta dadka dhimirka la haatan lagu xanaanayo ku taala magaalada Baydhabo waxa gaaray xaan suxufiyiin ah kuwa oo u kurgalayay xaaladda haatan haysata dadka dhimirka la mid kamid ah dhalinyarada iyagu dhimirka la halkaasi aan kula kulmay ayaa ugu horeen waxaan weydiiyay su'aalo ku aadan xaaladihiisa caafimaad waxaana uu ku jawaabay David Cameron miyaata waa markii ugu horeysay isbitaal lagu xanaanayo dadka dhimirka la oo baaxadiisu intaan la eg laga fuliyo marka loo eego gobolka Baay ama gobolada Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose Xuseen Nuur Geesay telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Baydhabo